الحمد لله marka koowaad waxaan rabaa dadka inaan iraahdo ducooyinka soo arooray iyo luqadda carabiga asalka waa barashadeedu wax loo baahan yahay dadku luqadan ay bartaan oo adciyada ay ku ilaahay ku bari lahayn ay bartaan tan labaad qofka duusan carabiyadii garanaynin baahidii ducadan uu qabo uu ku ducaysan karaa luqadii marka qofku uu garanayo ama Soomaali ha noqoto ama yaanay noqonay luqadan carabi ahayn oo luqada uu garanaya uu ku ducaysan karaa mas'aladaasi waxay farac ka tahay mas'alatul ajzi hadduu qofku ka ajizay carabiyadii uusan garanaynin culimada fuqahadeena waxay ka hadlaan haddii xataa arkaan qiraa'adku ka ajiso atahiyaadka ducarabi ku garan waayo ama adkaartu carabi ku garan waayo inuu iyadoo luqadiisa ku turjuman akhrin karo mutunta fiqiga shaafiiciyada inay ku qorantay manhajka iyo qeyrkii hadiiba waajibaadkii salaada markuu ajizay qofkii loo ogolaaday luqadan carabiga inuu ku akhriyo mustahabaadka iyo sunankuna min baabi awlaawi taa masalada koobaad tan labaadi nusuusta sharciga ducada amartay ud'uuni astajib lakum ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba faqaminuna yustajaba lakum fa fi sujudi fajtahidu fi du'a faqaminuna yustajaba lakum إلهي سبحانه وتعالى آدمهم أبوري اختلاف لغاتهم وألسنتهم كو أبوري وح شرط يقيده نصوصكم عن الحرين كتابك يا سنة واللغة العربية إنين نقضانا عبادات كان لقى عجز سيدة خطبة الجمعة وكالة عربية هدي اللي قرن ويانا لغتها كلا يكون أصحان بناء على هذا قاعدة جودة شرعية وح دليل وقارة معينة أيام ممنوعة ينسن شرين درتاد قف كان عربية قرن إنين لغتها كلا يكون عيسان كلا صلاة جودة هذا هي الدبادة هذا الله وبالله